jimco wanaagsan dabka ka holcaya magaalada Los Angeles ayaa sii kordhaya xakamaynta ayaana awood kasta loo isticmaalay nooc kasta oo agab waxdamiye ana goobtan waa la geeyay oo ay ku jiraan diyaaradaha C-130s agagaarka dabka ka holcaya si ay dabdamisahaan loogu adeegsan lahaa oo dabkan damintiisa ay uga qayb qaadan lahaayeen ilaa hadda ma jirto war dhammaystiran oo ah in dabkii lagu guuleystay damintiisa sida ay sheegayaan maamulka magaaladuna waxa ay tilmaameen in 40% xakamaynta horumar laga sameeyay laakiin dabeelta jirta awgeed ayaa cabsi laga qabaa inuu meelaha qaar kood dib uga kaco ama saameyntiisu ay u degdegto waxaan warbixintan ku eegaynaa dabkan ka holcaya magaalada ugu muhiimsan ee dalka Mareykanka iyo waliba sidoo kale inagoo ku dheerayn doona ama la barbar dhigi doona hadaladii kala duwanaa ee madaxda Mareykanku ay ka yiraahdeen qasa dhaqaalaha dabkan ilaa hadda uu galaaftay kan Israel ay ka heshay dhinaca Mareykanka iyo Joe Biden iyo Trump waxa ay ka yiraahdeen moogtahay macaamiil in Amal Bank ku diyaariya adeegyada Mastercard oo kala Classic, Platinum iyo World Deal ka xulo oo ka qaado xarunta kuugu dhow kaarku waa caalami bangiguna waa Amal in ka badan 180,000 oo qof ayaa guryahoodii waayay oo ka cararay lana daadgureeyay si looga badbaadiyo musiibada dabkan lafahooda ayaana la badbaadiyo oo ay la tageen waa baraka xoog leh marka laga hadlayo dal sida Mareykanka oo kala sidaas oo kale dad badan ayaa eheladooda meelna aan ku sheegi karin ilaa hadda waa tuma Los Angeles waa magaalo la tabcayay in ka badan 240 sano taariikhda aadanaha waa ubuucda laga soo saaro filimada la daawado ee dunida waxayna xarun u tahay magaaladani shirkadda Hollywood ee tan ugu weyn ee filimada soo saarta waa magaalo ku wanaagsan tamashlaha waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu nolosha qaalisan ee dunida iyadoo intaas ku qaadatay in wax kasta oo la geeyo aan dib loogala soo laaban waxaana ku yaalay hoteelada aaga tamashlaha iyo wax kasta oo bini'aadanku uu aad ugu baahan yahay diiwaangelintii la sameeyay sanadkii 2023 waxay magaaladan heshay inay ku nool yihiin ku dhawaad 4 milyan oo qof tan oo ka dhigaysa magaalada labaad ee ugu dadka badan ee Mareykanka marka laga yimaado New York City waana xarun ganacsi iyo dhaqanka ee koonfurta dalka Mareykanka California City male muuqaalka ay maalmo ka hor lahayd waxaana ka muuqata burburka xooggan ee dabkan uu sababay waxaana la moodaa aag dagaal culus ay ka dhaceen oo in ka badan 10 sano lagu dagaalamayay magaaladii camirneed maalmo ka hor hadda waa ka sii daran tahay qasadii la burburinayay 16 bilood ee na dhaafay Los Angeles hadii ay ahayd mid kamid ah goobaha ugu dalxiiska wanaagsan loona fasax tagi jiray maalmo ka hor hadda waa lama degaan iyo aag u muuqda inay dawladaha dunida ugu waaweyn hubkooda ku tijaabiyeen hayeeshee dabkacay ayaa ka dhigay meel gubashadeeda iyo muuqaalada laga soo duubaa ay ka daran yihiin dhacdooyinkii foosha xumaa ee indhaha aan u roonayn ee gumaadka bahalnimo wata ee ka dhacay marinka Gaza 16 bilood ee la soo dhaafay boqolaal kun ayaa waayay hantidoodii ehelkoodii sidaas oo kalena maalgashiga ugu ballaarnaa ee Mareykanka ayay ku dhacday dharbaaxadii ugu weyneyd magaalada Los Angeles qaybaha ugu muhiimsan ayaana dabkan u halakeeyay tan oo ka dhigan in degmooyinkii camirnaa ay hadda aad u muuqato in dib loo dhisana ay muddo qaadan doonto iyadoo waliba dhaqaale ahaan ay meesha ka baxeen kaabayaal muhiim ah waa mid ka mid ah awoodda bini'aadanka oo la tusay sida fudud ay wax kasta dhinaca isugu rogi karaan dabku waa halakeeyay Los Angeles ilaa hadda khasaaraha hordhac ahaan loo qiimeeyay ayaa ka badan 135 bilyan oo dollar sida ay BBC-du ka soo xigatay mas'uuliyiinta magaalooyinkan waa mid ka mid ah khasaarihii xoogana oo dab ka dhasho oo soo gaara Mareykanka dadkii ugu badnaa oo Mareykan ayaana gurya beelay oo hantidooda waayay tirada dhimashada ayaa aad isu bedelaysa xilligan in ka badan 10 qof ayaa la xaqiijiyay sida ay tabiyeen mas'uuliyiinta caafimaadka Mareykanka lama ogaan karo sidoo kale khasaaraha kama dambaysta ee dhimashada maadaama aan wali lahayn dad badan dabkuna uu wali goobaha qaybtood oo ka hulaaqayo dadkii ku digtay Gaza oo awoodooda la tusay ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho James Woods waa mid ka mid ah jalayaasha ugu caansan ee Mareykanka bilowgii duulaankii lagu qaaday shacabka Gaza ee Israel ee burburinta ku waday magaaladan oo ay u adeegsatay nooc kasta huba waxa uu iska duubay muuqaal uu ku taageerayo howlgalka Israel
oo ku sheegay inay qasabtay in Gaza la burburiyo dadkeedana la gumaado oo hubka laga dhiga Falastiiniyiinta. James ayaa saacado ka hor waraysi laga qaaday waxa uu bilaabay inuu ooyo sabab la xiriirta markii uu lacag ka badan $100 milyan ku waayay dabka holcaya ee magaaladan. waxaanu dabkan la tagay guryo qaali ah oo jiraagan Mareykanka ku lahaa aagga tamashlaha ku wanaagsan ee Los Angeles, taas oo muujisay cibaaro adduun oo degdeg badan. Jiraaga reer Mareykan ayaa ilinta cushan waayay, ha yeeshee dad badan ayaa dib u soo faagay oo keenay muuqaalo muujinaya isagoo ku diganaya shacabka la gumaadaya ee marinka Gaza ee Falastiin, kuwaas oo Israa'iil oo haysata taageerada Mareykanku ay u adeegsatay nooc kasta oo hub ahaa. Joe Biden waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg oo musiibo ah. Aqalka cad ee looga taliya dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay dhacday musiibo weyn. 180 maalin ayuu sheegay Joe Biden in lagu dhisayo magaaladii camirneyd ee dhanka kale u rogantay ee Los Angeles. waxaana uu ku sifeeyay musiibo qaran oo ay tahay inay ka qayb galaan dadka Mareykanka deeqururinteeda, tan oo muujinaysa in lacagta Mareykanku ay siiyeen dhinaca Israa'iil ee duulaanka Gaza mid ka badan ay uga bixi doonto dibudhiska aagga dabku la tagay. ku soo dhawow Trump, gumasho iyo jaxiimo gudaha Mareykanka. waa ciwaan u muuqda in dabkan khasaaraha weyn u geystay magaaladan muhiimka ahayd loogu diray madaxweynaha xafiiska la wareegi doona 10 maalin kadib ee Donald Trump, laguna xasuusinayo in awooddu intaas leeg tahay. waxa uu la wareegayaa musiibo rabbaaniya oo meesha ka saartay magaaladii Los Angeles, tan oo ka dhigan in shaqo guri oo adag ay u taalo. xafladiisa caleemasaarka oo $bilyan uu urursaday ayaa hadda u muuqata in hoos loo dhigi doono maadaama khasaare weyn uu soo gaaray gobolka California. Donald Trump 3 maalin ka hor waxa uu ka sheegay beertiisa dalxiiska ama tamashlaha ku wanaagsan ee Florida in Gaza, Hamas iyo Falastiin ay isku diyaariyaan cadaabka jaxiima haddii aysan sii deynin maxaabiista Israa'iil ee ay gacanta ku hayaan qabsadeen Oktoobar 2023. Trump waxa uu sheegay 3 maalin ka hor kaliya in jidka kaliya u furan Falastiiniyiinta gaar ahaan Hamas ay tahay inay degdeg ku sii daayaan dadka ay haystaan. haddii aysan taasin dhicin ay la kulmayaan darbaaxada Trump oo uu sheegay inay ka weyn tahay waxa hadda dhacaya. waxa aad la isku weydiinayaa talaabaqaadka Mareykanka, balse hadda taas wax ka duwan ayaa ka soo baxaya dhinaca California Mareykanka, waana khasaarihii ugu xoogganaa ee ka dhashay dabka socda. lacagtii ay Mareykanku ku taageertay Israa'iil 16 bilood ee la soo dhaafay mid la mid ah ayuu dabkan Los Angeles qaadan doonaa dib u dhiskeeda. sida ilaa hadda la xaqiijiyay oo diiwaan gashan, Mareykanka ayaa Israa'iil ku caawiyay dhaqaale iyo hub qiimeynteeda lacageed ay gaarayso $17.9 bilyan, waana tii ugu dambeysay la ansixiyay toddobaadkan maanta dhamaanaya oo ahayd 8 bilyan oo hub lagu siinayo Israa'iil si ay u sii wado duulaankeeda Gaza. hadda dabkan waxa uu ka qaadan doonaa Mareykanka in ka badan $100 bilyan, waana 3 jibbaar deeqdii la siiyay Israa'iil wax ka badan si ay u burburiso Falastiin. ugu dambeyn Mareykanku waxa uu wajahayaa mid ka mid ah dharbaaxooyinkii dhaqaale ee ugu ballaarnaa. Trump waa duq 78 jir kuna soo baxay doorashadii ugu dambeysay oo ahayd inuu Mareykanka gudihiisa dhaqaale gelinayo xoojinayana. hadda shaqo guri oo toos ah ayaa u taala, waana in dib loo aadi doono dib u dhiska magaalada Los Angeles, taasoo saameyn ballaaran ku dareemi doonta dhaqaalaha Mareykanka, siyaasadiisa dibadda iyo kaalmada uu siinayay Israa'iilna. waxaa la aaminsan yahay in tani ay si toos ah u saameyn doonto. Donald Trumpna 4 sano ee uu xafiiska jooga shaki male inuu la xarban doono darbada kaga timid dhinaca Los Angeles iyo dabkan khasaaraha u geystay, taas oo meesha ka saari doonta siyaasado badan oo uu ku fakarayo oo ay ka mid tahay dib u dhiska dhinacaas iyo waliba Israa'iil la siiyo $bilyan oo dhaqaale ah si ay dagaalka Gaza u sii wadaan. haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada, waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga PC. waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala ah: EVC, Zad, Sahal iyo M-Pesa. ballanteenu waa PC.